wuxuu keenaa caburin naqas inuu kugu xirmo keenaa kilyaha iyo hadduu qofka iska badiyo kilyaha iyo beerka wuxuu sababaa inuu damage oo u geliyo oo sababa hadduu qofka zaid u isticmaalo paracetamolka anemia ku dhacayo anemia uu keenaa dhiigariyo qof oo hypertension qabo qof sokor qabo ama qof dhiikar qaba hadii la siiyo oo sokor iyo dhiikar iyo cholesterol cudurada oo metabolism qof qaba hadii la siiyo wuxuu keenaa wax loo yaqaan stroke oo keenaa. Assalaamu calaykum, kusoo dhawaada casharadeen imtixaanada online-ka aan idinku soo gudbin jirnay. Maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno daawo loo yaqaan paracetamol. Kaniiniga ama qasheen paracetamol aan rabaa inaan ka hadlo. Marka paracetamol waa iska cunnaa inta badan waa aragnay. Marka paracetamol aan ka hadlaynaa. Waxaan ka hadlaynaa paracetamol maxaa la lahaa. Paracetamol waa naqaanaa generally kaniini loo baahdo waay markuu jirka bini'aadanka jiro problem loo yaqaano markuu jiro fever ama qandho ama alert markuu bixinayo dhiigga qaado markuu soo gudbiyo inuu jirkaaga problem jiro kuleel markuu imaado kuleelkaas maadaama dhiigga uu jiran yahay waxa la dejinaa barasharka dhiigga la dejinaa waxa laga sameeyaa marka barasharka dhiiggaas la dejinaa oo maadaama jirka uu kulul yahay waxaa la isticmaalaa daawooyin badan waxyaabo badan laga sameeyaa la isticmaalaa oo paracetamolkaas laga sameeyay waxyaabahaas marka waxay dejinayaan dhiigaaga markay ku milmaan maxaa dhacayo 3 saac kadib markuu dhiigaaga oo wacyigelin soo gudbiyay oo dhahay fever jiro oo aad qandho isku aragtay oo daawada paracetamolka aad qaadatay isla markaa waxaa bilaabanaya 3 saac ay qaadan inuu reaction sameeyo reaction inuu sameeyo 3 saac ay qaadanay paracetamolka isticmaashay dhiigaaga wala milma dhiigaaga marka muxuu bilaabaa inuu dejiyo wuxuu dejinaa marka kuleelkii uu dejinaa shaqadiisa maxaa waay qandho haday jirto haday kuleel jirto dejinaa markaas waxa loo yaqaan paracetamol. Marka maxaa laga sameeyaa paracetamol waxa laga sameeyaa pure inta badan waxa laga sameeyaa drug laga sameeyaa paracetamolka noocyo badan uu leeyahay paracetamolka waxa laga sameeyaa drugs laga sameeyaa waxa laga sameeyaa maadada la dhahayo acetylation of para aminophenol waxa lagu daraa marka maadada la dhahayo acetic acid iyo acetic anhydride labadaas maada lagu daraa laga sameeyaa waa la isku daraa marka la isku daro laba maada marka la isku daro way isku bedelayaan borderkaas la soo qaadaa waa la soo baceeyaa labadaas maada kiimikada marka jirka waxay ku sameynayaan drug way drogeynayaan si heerkulka oo jirka qandhada ziyaadaysa ay ugu ilaaliyaan way ka yareeyaan marka labadaas maada ugu muhiimsan waxay kale ku daraan alcohol waxay ku daraan 100 mg ay ku daraan 5 ml oo markii la diyaarinayo waxyaabahan oo loo yaqaan paracetamolka 5 ml waxa lagu daraa 100 mg ethanol nooca loo yaqaan ethanol alcohol loo yaqaan lagu daraa si jirkaaga murqahaaga korkaaga dhan oo u noqdo kor oo jaw ahaan daawada ay u qabsato daawada markay jib ahaan u qabsato qandhada ka dagayso dhiigaaga wuxuu noqonaa alertiga noo yareeyo laakiin wili cudurka ma cado cudurkaas wuxuu sababay lama ogo paracetamolku bas wuxuu ku sameeyaa shaqadaas oo dejinaa marka maxaa loo isticmaalaa paracetamolka waxaa loo isticmaalaa markay qandho jirto markay madax xanuun jiro markuu madax wareer jiro markuu kuleel jiro markuu qofkan dareemayo xanuun jirkiisa in xanuun lugta ay xanuunayso paracetamol u baahanaa madaxa ay xanuunayso paracetamol u baahanaa ilaa ay xanuunayso paracetamol u baahanaa markaas la isticmaalaa marka qodobka afraad muxuu waa naqaanaa paracetamolka side effect badan uu leeyahay wuxuu leeyahay daal uu leeyahay qofka markuu isticmaalo kadib daal uu keenaa wuxuu keenaa caburin naqas inuu kugu xirmo keenaa kilyaha iyo hadduu qofka iska badiyo kilyaha iyo beerka wuxuu sababaa inuu damage oo u geliyo oo sababa hadduu qofka zaid u isticmaalo paracetamolka anemia ku dhacayo anemia uu keenaa dhiigariyo keenaa inta badan aniga paracetamol waxyaabaha caadi waa iska isticmaalnaa haddii qof oo hypertension qabo qof sokor qabo ama qof dhiikar qaba hadii la siiyo oo sokor iyo dhiikar iyo cholesterol cudurada oo metabolism qof qaba hadii la siiyo wuxuu keenaa wax loo yaqaan stroke oo keenaa wuxuu kaloo problem oo ku sababaa concentrationka jirka bini'aadanka imbalance ka dhigaa maadaama jirkaaga uu ku milmay oo murqaaga dhan galay maadadaas chemicalka laga sameeyay jirkaaga ay gashay inta uu jirkaaga ku jiro waxa u baahan tahay inaad jiifatid
side effectkiisna waa leeyahay haddii aad isticmaashid maadadan paracetamolka oo side effectada isku aaragta waa kaya marka waxaa samaysaa digniin qodobka shanaad digniin waxaa kaaga digaa daawo alla daawadii lagu soo qoro ha isticmaalin side effect uu leeyahay daawadan qadiiba laga sameeyey kiimika laga sameeyey side effect uu leeyahay side effectiga markuu leeyahay lagu dhahay aad hadda maanta xanuunan ku hay xanuunka inuu kaa bixiyaa rabtaa haddaa gabar aad tahay beri uuraa yeela doontaa haddaa maanta kaniin isbartay beri uuraa yeelane uur adoo leh kaniin ma isticmaali karta forbidden waa ilaa ay 5 bil ka gaaraysa kaniin laguma ogolo 5 bil markay gabadha gaarto oo dhicaan loo yaqaan amniotic fluid la sameeyo kadib la ogolay inay isticmaasho kaniini paracetamol ama wixii la midka ah laakiin lama ogolo intay ka yar tahay 5 bilood inay isticmaasho haddii isticmaasho maxaa dhacaya dhicaamanka oo la sameynayo cunigaas loo abuurayo daawada waxa ku milmeen paracetamol ku milmayso cunigaas bari wuxuu dhalanaa abnormal problem oo dhalanaa inuu problem qabo jirkiisa tusaale organada qaar inay dabacsanaan ku umaadaan saameyn wuxuu ku yeelanaa side effect wuxuu ku yeelanaa aadan dareemeynin bari cuniga markuu dhasho side effect oo la soo baxaa marka cuniga waxaa arkay maadan caloosha xanuunayo dhuunta xanuunayso ilmo yar waxaa arkay dhaay gaasay qabaan caloosha xanuunayo sokorey qabaan side effect oo la imaanaa maxaa ka hoos garay side effectigan cunigan markuu formationka hooyadiisa caloosh ku jiro hooyadu waxa leeyahay uuraa leedahay kaniini asugu dhawaanin dhakhtar la tasho waa fahantam dhakhtar la tasho dhakhtarka asaa gaalna ku siinayo kaniini kasta aragtina isku isticmaalan marka waa maasantihiin mawduuca inta ku soo gabeynayna daawo alla daawada is leedahay oo dhakhtarka ka soo hadlo isoo qor commentiga uu soo reeb waa ka soo hadli doonaa وانا ما سنتين مقال كان سي شرقري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته